waxaan idinka mahadnaqayaa inaad soo ajiibteen kulankan iyo martiqaadka. inta aanan hadalkayga bilaabin waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa inaynu ku sallino nebigeenna sharafta badan rasuulkii alleh Muxamed sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal, jamhuuriyadda Somaliland waxay heshay aqoonsi rasmi ah 26 Disembar. waxaanu noqonayaa aqoonsigii labaad ee taariikh ahaan Somaliland hesho. aqoonsigii koowaad wuxuu ahaa 26 Juun 1960. labada jeerba dalkii ugu horreeyey ee inoo hor aqoonsaday wuxuu ahaa dalka Israa'iil. aqoonsi waa dariiq furmay oo dhowaan aynu sugayno in saaxiibo badan oo kale ay ku soo biiraan baydankii. aqoonsiga hadiyad laysma siiyo. waxaynu u gallay halgan dheer. waxaynu ku kasbannay aqoonsiga xilkasnimo, xasilooni, hannaanka dimuqraadiga ah ee aynu hirgelinnay, dowlad wanaagga, dhiirigelinta ganacsiga suuqa xorta ah, iyo waxyaabo kaloo badan oo Somaliland qabsatay. Somaliland waxay dhisatay dowladnimo buuxda oo ay ku ilaashato dhulkeeda iyo dadkeeda. waxayna door muhiim ah ka qaadataa xasiloonida geeska Afrika, badda cas iyo gacanka cadmeed. dunidu waxay Somaliland u qirtay dal mas'uul ah oo lala macaamili karo. taas ayaana soo dedejisay aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland. waxaynu arkaynaa dalal kooban oo uu cabsi iyo shaki geliyey aqoonsiga Somaliland. qaarkood waxay ka warwarsan yihiin inuu dhaawac u keeno dana ay leeyihiin. qaarkoodna xog la'aan iyo caadifad ayaa qaaday. waxaanu diyaar u nahay inaanu la fadhiisanno iyo inaanu ku qancinno cid kasta oo cabsi ka qabta aqoonsiga Somaliland. waxaanu dareensannahay dalalka qaarkood sababta ugu weyn ee cabsida gelisay inay tahay nacayb ay u qabaan Somaliland, balse ay tahay kuwo kalena waxa haya war la'aan iyo aqoon la'aan ay ka qabaan taariikhda Somaliland. muddo dheer xogta iyo taariikhda Somaliland ayaanay war u haynin dalalkaasi. waxaanu mar kale caddaynaynaa cid kasta inaan jiritaanka Somaliland aanu cidna khatar ku ahayn. aqoonsiga waa xuquuq noo gaar ah oo u gaara dadkayga iyo dalkayga. waa doonis aanu rabno in si sharaf ah, nabad iyo ammaan ugu noolaanno dalkayaga. waxaan far waaweyn ugu sheegayaa in Somaliland tahay dal iyo dad leh taariikh guun ah. waa dalkii ugu horreeyey ee xornimo qaata dadka af Soomaaliga ku hadla. xornimadiisiina u sadaqeeyey inuu abuuro 5 Soomaaliyeed, taasoo noqotay riyo lagu hungoobay. maanta 5tii Soomaaliyeed Djibouti gooni bay u taagan tahay. Kililku wuxuu ka tirsan yahay Ethiopia. NFD waxay ka tirsan tahay Kenya. bal Soomaaliya waxay isweydiisaan maxaa khasab ka dhigaya in Soomaaliya iyo Somaliland ay weligood mid noqdaan. waxaan si gaar ah ugu sheegayaa walaalaha iyaga Carbeed iyo dalalka Islaamka in Somaliland 34 sano idinka martiyeysay inaad ictiraaftaan. hase yeeshee aad dhegaha ka furaysateen. dhammaantiin waxaa ka mid ahaydeen 193 dal oo aan u qoray 17 May
2025 codsigii ahaa inay ictiraafaan Somaliland madaxda aan warqadda u qoray ee Carbeed iyo kuwa Muslimkaaba waxaa ka mid ahaa walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud dal kaliya oo Carab ah ama Muslim ah oo noo soo jawaabay ma jiro bal waxaad isweydiisaan sababta aad uga soo horjeedaan ictiraafka Somaliland maxaa dhib ah ee Somaliland idin geysatay Somaliland iyo Soomaaliya 34 sannadood bay kala maqnaayeen idinna dhammaantiin waad ogeydeen walaalayaal xaalkiinu wuxuu eegyahay sidii ninkii reer Somaliland ee yidhi sidii bahalkii bariishka ka dhacay baraarugay goor la soo baxay ilaahay ballankii barqaan kacay aniga iyo shacbiga Somaliland walaalaha iyaga dalalka Carabta iyo Islaamka waxaan idinka sugaynaa weli jawaabtii ictiraafka dalalka Turkiga Masaarida Saudi Arabia iyo Djibouti waxaanu haynaa wanaag waxaanu haynaa walaalnimo laakiin waxaan idiin sheegayaa inaanu xaashi cad ugu qori doono wanaag iyo xumaan waxa uu dal kasta u geysto shacbiga Somaliland haddii la yiraahdo shacbiga Somaliland ee sharafta badan waxay u dhabar adeygeen halgan dheer oo xaq ah walaalayaal waxaad ka soo gudubteen duruufo qallafsan oo adag oo ka mid ahaa xasuuq dunida laga qariyay oo ay ku naf waayeen in ka badan 200,000 oo muwaadin laguna qaxiyay in ka badan 800,000 oo muwaadin oo caruur iyo haween u badnaa xasuuqa gumaadka iyo qaxinta waxa sameeyay dawladdii Soomaaliya ay naga dhaxaysay Hargeysa iyo magaalooyin kale oo badan dhulka ayaa la lasibay dhammaan Hargeysa iyo magaalooyinka kaleba waxa ka muuqday dhaawacii dawladdii Soomaaliya u geysatay hay'adaha xuquuqul insaanka waxay qoreen kana hadleen xasuuqa burburka iyo qaxinta loo geystay shacbiga aan waysnayn ee reer Somaliland waa taariikh in xasuuqaas hal dal oo Carbeed iyo Muslim hitoona aanu ka hadal hase yeeshee waxaa ka hadlay safiirka qaramada midoobay u fadhiya dalka Israa'iil oo horgeeyay miiska golaha ammaanka ee qaramada midoobay arrinta aniga iyo shacbigaygu waanu uga mahadnaqaynaa dawladda Israa'iil waxa isweydiin leh dawladaha Carbeed iyo kuwa Islaamku miyaanay ka warhaynin in 200,000 oo Muslim ah oo Somaliland la xasuuqay halgankii shacbiga Somaliland guul buu ku soo dhamaaday dulmigii dawladdii Soomaaliya guul darro ku dhamaaday iyadoo taariikhdaasi jirto jirina doonto haddana Somaliland walaalahooda Soomaaliyeed nacayb iyo colaad midna umay muujin nasiib darro dawladda Soomaaliya ee hadda joogta waxba kamay baran taariikhdii hore iyo dhibtii dawladdii Soomaaliya gaarsiisay shacbiga Somaliland ee isugu jiray xasuuq qax iyo burbur dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh madaxda ka yahay waxay aad uga xumaatay ictiraafka Somaliland dawladda Soomaaliya waxay aloosaysaa duulaan ay ku soo qaado Somaliland waxay dayuurado laga leeyahay dalka Turkiga laba dhigayaan ciidamo iyo hub
لكينيو لاسعانود وهو حسن شاقي إن السقا يدولو أي حلفيين كسو دوليان سومالي لان سي سومالي لان ugu celiyaan inay Soomaaliya ka sii mid ahaato dawladaha xasan ka sheekeeyay ay xulafada yihiin way soo bixi doonaan waxaan uga digayaa inaanay ka mid noqon faragelinta Somaliland ka qayb noqoshada xasilooni darro ka dhalata Somaliland ama geeska Afrika maanta dawladdii Soomaaliya ee xamar joogtay aan cidna xukuumo sidii Saleebaan sheegay kala badh ama ka badani waxay joogaan Laascaanood xamarna xaalkeeda waynu ka warhaynaa madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiina waa la sugayaa inuu Laascaanood yimaado waxaan u sheegayaa shacbigayga dawladaha aanu dariska nahay dalalka Carbeed iyo kuwa Islaamka qaramada midoobay ururka midowga Afrika dalalka EU-da in arrintaasi tahay daandaansi faragelin qaawan oo aan geedna loogu soo gaban iyo duulaan cad waxaanu ka digaynaa cawaaqib xumada ka dhalan karta falalkaas mas'uuliyad darrada ah ee xukuumadda Soomaaliya ee Xasan Sheekh hogaaminayo oo saameyn doonta nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika dawladdii kacaanka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre waxay dunidu u qirsanayd inay ahayd dawladdii ugu xoogga weynayd Afrikada madow bal Soomaalidu ha isweydiiso xagii ku dambeeyay dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxaan isleeyahay dawladda xabaasheedii Hargeysa ka qodan tahay dayuuradihii iyo taawangiyadiina waxay sulan yihiin suuqyada Hargeysa hadraawina markii ugu dambeysay ee Siyaad Barre la hadlayay markuu ciidamadii ku soo dhameeyay Hargeysa iyo Burco wuxuu ku yiri keen dabaabadii haray aniguna waxaan leeyahay bal xasano maanta keen dabaabadii haray aniga iyo shacbigaygu yar iyo weyn rag iyo dumar waxaanu diyaar u nahay aniguna aan ku horgelayaa inaan dhiigayaga iyo naftayada ku difaacno dhulka Soomaaliya waxaan shacbiga ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan difaaca qaranka waxaan hoosta ka xariiqayaa inaan Somaliland cidna duulaan ku ahayn cid kasta oo duulaan ku soo qaada Somaliland waxaanu bari doonaa casharo aanay weligood ilaawin anigu Laascaanood duulaan kuma yihi waxaase ku kabayaa arrintaas sheekadan ninkii hogaamiyihii saddexaad ee Itixaadka Soviet ama Soviet Union oo la oran jiray Nikita Khrushchev ayaa nin wariyahay wuxuu weydiiyey Talyaaniga ma ku duulaysaa sababtu lahaa ma ugu duulaysaana waxay ahayd Maraykanka saldhig ka samaystay dabeedna Nikita Khrushchev wuxuu yiri maya Talyaaniga ku duuli maayo laakiin meel kastoo saldhig Maraykan ku yaalo waanu ku duulaynaa waxaan ka digayaa inay Laascaanood noqoto meel lagaga soo duulo
somalilan waxaan u mahadnaqayaa dadka reer somalilan gudo iyo dibad golayaasha qaranka axsaabta qaranka culimada fanaaniinta iyo abwaanada saxaafadda qaybaheeda kala duwan haweenka iyo dhallinyarada iyo intii kale aan ka tegeyba ilaahay baa mahad oo dhan iska leh ma jirto maalin ay somalilan ka midaysan tahay ma jirto maalin ay ka kalsooni badan tahay ma jirto maalin ay kaga adag tahay ilaalinta qarannimadeeda waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha puntland oo aan ka wada shaqaynayno nabadda iyo xasiloonida gobolka dardaarankayga ugu dambeeya waa midnimo waa midnimo waa midnimo waa difaac qaran waa difaac qaran iyo inaynu u diyaar garowno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu